السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابته وحان إليه قعمة فرن ينيد فرن كسور دواد لبدان بيروان كلا مشغولني جنال كان نقدا ونيسي واسلمان يرى أوفيشيال وحان يقول ريجي سيجي قال إيه عوض وحنوها هاي برنامج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب المالية وحان إذن الله يسود دواد مرة لبادي مرسي دحاد واسي هوري إذن كوغو شاكتاي مانتا inta nagu cusub way nagu cusub yihiin waxaan idin leenahay soo dhawaada gacmo furan ee qalbi furan ku soo dhawaada niyad saafi ah waxaan idin ka codsanaynaa subscribe like share inaan naga saacidaan inta nagu xiran way nagu xiran yihiin maasinidiina leenahay faaniskeyga waan idin ku faanaa ma sha Allah waxaan caaba inaan filaaqeeno maamo Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo qurbaha ay ku dhibaataysan tahay marka dhibaatadeedii iyada noo sheegi doonto noo sharaxi doonto waxaan rabnaa inaan la tiiraayona la xanuunsano la dareeno idinkan waxaan idin ka codsanaynaa khiyaarey ducada inaa xaqiini ee noqoto maamada ducada ku soo kabtaan oo wala anaga waxba u awoodinay Soomaali hadaan nahay ducada le aan ku fardhino ducada waa muhiim ducada ba muhiim wax la isii waxa ka muhiimsan ducada insha Allah khiyaarey markana la daawada barnaamijka soo dhacayo hindiini idin macalin maamada ooyin نلا دابا. السلام عليكم وأنا أهني محمد خليف والسلام يا أنت مقع الصومالية دي أنت إسلامة أنا بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن وحين الله ونمحو الحمد لله رب العالمين وحكى الصوء ماذا وألقوا حمدية شرعي خير به شر يا خير بإلهي بسميه وحلو سميه أدومضة إلهي بلا آذنك جن إنسبة إن سنة كان بشان وكله الحمد لله قرب بوحان فدي وابوحي بل سمعنتي بحالك إني قلها الله وقرب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم waxay dhahay sanadkan bishaan oo kale waxaan ahaa guri buuxo oo farxad iyo reereen iyo barwaaqo ku jiro haddana aad arkaysaan waxaan ku jiraa guri mugdi ah wallahi waa wax laga xumaado waa wax laga tiiraanyoodo wallahi waa wax muslimiin oo wax laga xumaado khiyaarey waa aragtaan beri waa maanta waa adduunyo berina waa aakhiro wallahi waa maamo Soomaaliyeed oo dhibaataysan waxaan idin leeyahay khiyaarey la tiiraanyooda ducada xaqiina waa dadka islaamka loo duceeyo intii dhibaataysan ilaahay inuu dhibaatada ka qaado intii baahan ilaahay inuu dharjiyo intii awlaad rabtan ilaahay inuu awlaad baariya siiyo intii heestana awlaadooda ilaahay ha xafido aan u barakeeyo akhiyaarey ducada waa xaqiina bal la daawada aan dareemay inkastoo maanta aan calool xumahay oo aan fadhiyo guri madow ilaahay wuxuu eegayaa samirkayga ilaahay eegaya iyo adoon ilaahay inaan ku xamdido aan noqdo dad badanaa laga yaaba igu wiirsanay dhahaayo ilmihii iyadaa dayacday iyadaa dhibaataysay ما مقشة دقيقة معك مقشة وارنتدا وارنت إن شاء الله تعالى دعاء ولا أكحد ما وح ريالتي أو وح نبأ وح بين لو سقط غالب اسكده ده ما أهان مركا أخياري دعاء وحقيني وسودعية مع مدان عرورتي دي dhibaatada heysata ilaahay inuu ka qaado kurbada heysata ilaahay inuu ka qaado farxadeeda hore ilaahay inuu soo celiyo balna la daawado si aniga ilaahayna kala siiyay ilaahay baa oofsaday sanadkiina soo dhaafay markay February 18 waqtiga waa xasuusta xaamila ah 8 bilood bilood xaamilaha markuu ninkayga dhintay murug badan iyo oohin iyo qalbi jab badan aan dareemay waqtigiisa inta ku okaa ilaahay baa oofsaday alxamdulillah ilaahay meeshiisa nin baari waha ilaahay qalbigiisa u qaboojiyo balse murugta ugu weyn amaanta waarun midaas horta akhyaaray way jirtaa qofka bini aadanka ah hadduu dib qabsado waxay u badan yihiin
khaasatan anaga marka iska hadalna Soomaalida in la dhaho hebel uu inkaaran yahay hebel saan waaye asaa miis asaa iska dayacay xagga ilaahay ma fiirinayaan xagga ilaahay wax kasta waa qoraal wax kasta waa qoraal wax walba waxaa la qoray marka adiga xab iyo biyo aad ahayd laakiin in la iska hadlo waa laga fiican yahay maamada waa dhibaataysan tahay ducada aan ku kaalmeeno meel kasta aad joogtiin muslimiin aan nahay waa u danqanaynaa jiirkeeni waaye ducada aamiin ducada wax walba furfurto u duceeya gabadhan masaakiinta inuu ilmaha u sahlo haddana nala fiirsado walaalayaalo aabahood u duceeya alla ka dhigo sharta iyo shaydaankana kala dhex galay ilaahay naga qabto kooda islaamka iyo kooda gaalkaaba walaalayaalo faatixada iyo soo mara walaalayaalo ilmahaas u soo duceeya ilaahay inuu sharta iyo shaydaankaas na kala kabtuure ilaahay naga qabto faatixada iyo soo mara waa anoo nimco ah sanadkan bishaan oo kale markeed faraxsanaa maantana murugo in la hor fadhiyo iyo qalbi jab waa in salaamaya salaamta islaamka salaamu calaykum waraxmatullahi sida adigana dhahday walaalay waan kuu soo duceynaynaa ducada ku kabeena walaalaha islaamkana waxaa leenahay usoo duceeya maamadan ilaahay inay waxaa niyadeeda ku jira ee iyada u hamuun qabto ilaahay inuu u saqiro walaalayaal ducada xaqiina waaye anagana aamiinta idin wadeena waxaan waan lagu shukriyaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan kaaga baryaynaa niyadaada khayr badan inaad u sheegtid oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa niyadaada jecesha ilaahay kuu fududeeyo inta waan kuu duceynaynaa inta muslimiin insha Allah ta'ala way ku duceynayaan insha Allah inuu ilmaha videogan daawatan waxaa rajeynayaa inay ducadooda ilaahay intuu codkayga gaarana walaalayaal sheer gareeya in ilaahay dadkaas yaaniga na kala bari yeelo ilmahaygina mar laba waxay leedahay inta codkayga gaarta sheer gareeya anaga waxaan ugu qasbay inaan idinla soo sheer gareeno oo idinla wadaagno waa codsi iyada xaggeeda ka imaaday aniga iima soo dirsanin adigaas kuuma soo dirsanin ummadoo dhan ee mas-uuliyadda saartay مسؤوليتي أنا صارت وأنا كبحنا أخياري دعاء واحدين صوت دعية ولا ليالو صوت دعية إن شاء الله بسم الله الكريم كلن كان لما ده أسكار كدون واحد إذن من كاجتجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.